magaalada muqdisho maxaa kala haysta dhaqan xumada uu la tegay basadir ninka la yiraahdo ee tansaaniyaanka ah ee majaajilistaha ah ma xuma in dalka iyo dadka la soo booqdo in aad timaado in aad barnaamij ku qabsato ma xuma laakiin dhaqanka dalka iyo dadka Soomaaliyeed inaad dhowrto ama qofka adiga markaas hoggaanka ku ah oo dalka ku keenay in fact dad baa qof baa ku keenay qofka ku keenay waa inuu ku control karaa oo adiga ku wadi karaa laakiin haddii adiga dhaqankaagii iyo diintaadii lagu ciyaarayo adiguna aad qofka keentay dalka waxaa muhiim ah inaad ka hadasho ama aad ka soo horjeesato meesha umaadan imaanin in aad adigu dalka leedahay waxaad ku tahay foreigner basadir baan la hadlayaa ninka tansaaniyaanka ah Soomaaliyay videogan la daawada clipkan la daawada barnaamijkana share gareeya That's not Tanzania. That is not Kenya. That is Mogadishu. عاصمة dalka Soomaaliya. Ninkaas waxa daawanaya oo qolka kula xareysan oo uu casuumay boqolaal dhalinyaro Soomaaliyeed ah. Gabdho iyo wiilal isugu jira. Meesha waxa lagu cabayo waa alcohol, qamri, حرام. حشيشة حرام فوكسي حرام قاونان حرام اوي علماء دي اوي علماء دي اوي وسالتي دينتا يا اوقافتو ددك الصوماليادو ويلش يا قبلها الصوماليادو اوي دقنكيني اوي دينتيني سوبني اوي ددنمديني اوي شرفتيني اوي كرامديني اوي حاجه كبحري waxaan idin sheegayaa waxa maanta waxaas ka socdaan wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed waa dalkeena waa magaalada Muqdisho kaca ama iska daaya waxaas waa diintiini waa dalkeeni waa dhaqankeeni sidaas loogu tumanayo iyo dhalinyaradini oo la idinka marin habaabinayo dalkan iyo dadkan waa lagu soo diilay diin baa looga soo duulay dhaqan baa looga soo duulay dhalinyara looga soo duulay aqliga lagaga soo duulay meel walba lagaga soo duulay meel u fayo mara waxaan leeyahay marka wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed waka waristaaga warkaca dalkan iyo dadkan badbaadsada kaamarka inta uga baxo waxaan rabaa inaan idin kala hadlo libax Fahad Yaasiin ma sha Allah markii la ogaaday inuu magaalada Muqdisho yimid oo wax allaala iyo waxa uu og yahay miiska soo saari doono shirkiina insha Allah taala uu bilaaban doono maalinta bariya islaantii idin wareerisay madaxa idin ka rogtay meediyaha ka fariisan weeday ummadda Soomaaliyeed ka fariisan weeday waxa soo baxaysa in ay ka huleeshay magaalada Muqdisho iyadoo ku sii jeeda dalka Kenya ka baxsatay sharciga dalka Soomaaliya u yaala iyadoo nafteeda maanta la carartay ayaan idin hayaa xogteeda insha Allah taala islaantii waa la laayahay waxa soo baxday marka wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed in Fahad Yaasiin oo sirta oo haayo oo dhan miiska soo saari doono waxay maraysaa marka ilaahayow dooli iga dhig dooli inta badan way baxsadeen inta badan way ordi doonaan inta badan way kala tagi doonaan
laakiin waxaan codsanaynaa oo aan rabaa barnaamijkan inaad gaarsiisaan guddiga amniga qaranka Soomaaliyeed iyo Fahad Yaasiin inaad fariinta gaarsiisaan. waxaan leeyahay guddiga qaranka Soomaaliyeedow iyo Fahad Yaasiinow maantay runta joogtaa, kunnaha kufrida kunnaha muslimto, waxba ha qarinina. ummadda Soomaaliyeed runta u sheega, runta la soo istaaga. waan ogahay runtu way xanuun kulushahay, in la sheegana waxay ka adag tahay in sibir la laqo. madaxda guddiga waxaan ka codsanayaa in ay sida ay wax yihiin ummadda Soomaaliyeed ula wadaagaan oo aan waxba la qarin. usha diirka in laga siibo. Fahad Yaasiin waxaan leeyahay, Fahad Yaasiinow ilaahay ha ku xafidee. waa ka inta ku soo xafiday cadaawo kaa soo dhex saaray dalkaagii iyo dadkaagii adoo bad qaba kugu soo celiyay. waxaan kaa codsanayaa oo shacabka Soomaaliyeed kaa codsanaya wax allaale iyo wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kugu ogyahay. hadday kunna kufriyayso kunna muslimayso wadda ka soo qaad, la wadaag ummadda Soomaaliyeed, runta u sheeg meesha ay wax ka maqan yihiin oo dhan. Fahadow ilaahay baan kugu dhaarshay, Fahad Yaasiinow ilaahay baanu kugu dhaarinay 20 milyan oo qof oo Soomaali ah waxay sugayaan warka afkaaga ka soo baxa. waa marqaati ma doonto inaad gar iyo xaq leedahay. waa marqaati ma doonto in lagu dulmaayay oo kuwii dulunka waday ay ku dulmaayeen. waxaa taa daliil u ah sida adag ee safarka adag ee aad dalka ku soo gaadhay oo aad ku timid. dambiilaha hadda lama celiyo, waa la raadiyaa markaasaa la soo qabtaa saa xabsiga la dhigaa. taas waxay caddayn u tahay Fahad Yaasiin in uusan dambiile ahayn, hay-adda nisana aysan dambiile ahayn, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyana uusan dambiile ahayn, laakiin dambiilayaashu ay yihiin kuwa Fahad Yaasiin u diidana in uu yimaado magaalada Muqdisho. war qofka kriminaalka ah sharciga wuu ka cararaa. qofka aan kriminaalka ahayna sharcigu u yimaadaa. Fahad Yaasiin sharcigu u socdaa oo u yimid. nimanka ka hor taagan ee ka celcelinayana waa kuwa sharciga ku tumanaya ee xaqdarrada ku jira ee gabadhu meeshay ku maqan tahay ku aasteen, ama nolol ha ku aastaan ama geeri ha ku aastaan meel u taala. waxaan maqlayay galabta qoladii al-shabaab ee umla dooxatada ahayd ooba la yaabanba xasan ninkaa la yidhahda ra-iisul wasaare buubuubow iyo qowmkiisa reer iimaan khayr daran iyo ra-iisul wasaare buubuubow ayaa waxa ka ashahaadatay oo la yaabtay kooxda al-shabaab. waray soo saareen bay waxay ku yiraahdeen annagu ila ekraan maanaan dilin, maanaan arag, ma naqaano, ma urinin, ma al-shabaab baa yaabtay. waxaani waxa ay wadaan nimankii al-shabaab ee aad taqaaneen ayaaba la yaabtayba. cumar cabdirashiid baa la yaabay. cumar cabdirashiid oo aad wada taqaanaan, badgata, khiyaanoole, tuugiis, adduunyada marshay oo meershay oo kabihii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam qalayl ku cunay ayaa nimanka la yaabay
oo ra'iisul wasaaraha la yaabay oo caqli yaridooda iyo doqonimadooda la yaabay soo dhawaad assalaamu calaykum sorry waxaan leenahay marka oo aanu dalka iyo dadka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliya iyo Fahad Yaasiin iyo guddiga amniga qaranka aanu ka codsanaynaa in aysan waxba qarin ummadda Soomaaliyeed maanta waa soo jeedaa waxay sugaysaa Fahad Yaasiin intuu afkiisa ka kala furayo 20 milyan oo marqaatiyaasha nool ayaa fadhida oo idin sugaysa waxaan leeyahay guddiga amniga qaranka iyo Fahad Yaasiin waxba ha qarinina war kunnaha kufrido kunnaha muslimto waan idin la hadlayaa runtaan idin sheegaya meel adag baan bahashan ka keenay meel adag baan Fahad Yaasiin ka keenay meel adag bay nala maraysi ilaahay galadiis waxaanu ilaahay ku xamdiraynaa in ilaahay wax walba oo banaanka u soo saaray war wuxuu ilaahay soo saaray ha isku dayina inaad qarisaan anigu waxaan la hadlayaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan la hadlayaa Fahad Yaasiin waxaan la hadlayaa dhammaan mas'uuliyiinta dalka iyo dadka Soomaaliyeed xilalka u haysan ee guddiga amniga qaranka ayaan la hadlayaa war waxba ha noo qarinina sagaaro baa waxaa la yiri xar muuqday duugta waxa aad noo qarisaan ilaahay waa hadlay waa kashifay haddaad wax noo qarisaan ilaahay idinkana ha noo kin kashifo anigu midaasan taaganahay anigu idinkuma taageero idinkuma garab taagni qabyaalad waxaan idinka dhex arkay sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed waa inta maanta xilalka haysa ee Soomaalinimadu ku jirto ee dadnimadu ku jirto ee raganimadu ku jirto ee dalkan iyo dadkan u maraya cadaab in ay geeyaan meesha uu u socdo anigu qabyaaladii kuma taageero anigu idinkuma taageero 4 sano iyo 8 bilood lacagaad isiisaan idinkuma taageero wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed oo maanta waxaan rabaa inaan diirka ka qaado oo aan idin cadeeyo 4 sanadood iyo 8 bilood sida adag ee aan ku taageerayay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo dawladdiisa oo ay dad badan igu caayi jireen lacag baad qaadataa oo reerka aan ka dhashay ku kala tagno nabadi ayaan rabaa caawa inaan idin cadeeyo waxaan rabaa caawa inaan markhaati idinkaga dhigo historyga 4 sano iyo 8 bilood aan reebay oo aan dhigay waxaan rabaa inaan caawa idinla wadaago 4 sano iyo 8 bilood oo aan live soo galayay inaan idinla wadaago shaygii ii sahlay 4 sanadood iyo 8 bilood in aan dalka iyo dadka difaaco sheer gareeya inaan garab istaago xaqa sheer gareeya aad sheer gareeya buuxiya ayaan rabaa inaan idinla wadaago caawa barabta sheer gareeya telefonkaas aad u jeedaan 4 sano iyo 8 bilood baan waxaan ka taageerayay jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xaqiiqatan ma aha telefon weyn ma aha macnaha telefon qaali ah ma aha inta badan wuu jabaa iga jabay dhowr jeer telefonkaas taariikh buu aniga agtayda ka leeyahay waxauna ku taariikhaysan yahay oo aan soo iibsaday 4 sano iyo bar ka hor 4 sano iyo 8 bilood
maanta laga joogo maalintii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo loo doortay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ka hor taleefanka laan haystay ayaan soo iibsaday. sababtaan u soo iibsaday waxay ahayd in aan ku taageero dalka iyo dadka soomaaliyeed, codkaygana la daawado sida aan taageeraha ugu ahayna aan u taageero. waxaan uga jeedaa marka aniga madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo $1 oo uu leeyahay ama xaggiisa iiga timid ima siinin 4 sano iyo 9 bilood taleefankaas ku shaqeynay oo aan ummadda Soomaaliyeed ugu shaqeynay. kanax ama ku farax. waxaan ku keenay marka oo aan caawa rabaa inaan xaqiiqda idiin tusiyo. madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo dawladdiisa anigu kuma taageeraynin qabiil, kumana taageeraynin lacag. oo haddaan lacag ku taageerayay taleefankaas ma wateene waxaan fadan lahaa iPhone-ka ugu qaalisan dunida. runtaan kuu sheegaya iyo xaqiiqada. taageerada dawladda Soomaaliya iyo dalka iyo dadka Soomaaliya inaan wax ku luus gareeyo moogiye waxba kuma sameeyo, mana ku sameynayo. midda labaad waxaan rabaa inaan caawa meel dheer ku soo xidho. taleefankaas waa taleefanka dawladda nabad iyo nolol laga taageero, live-ka looga soo galo. nimankii xalay iyo maanta isoo wacay ee ii hanjabayay oo runtaan idii sheegi rabaa hadda. that is my phone. xaqiiqada idii sheegaya. lacagta aad ii sheegteen ee aad ofagarayseen wallaahi oo bilaahi oo tallaahi ilaahay baan ku dhaartay oo shacabka Soomaaliyeed baan u dhaartay inaanan u baahnayn. waxaan idin leeyahay Soomaaliya waa beec. haddaad isleedihiin ma aha. Soomaaliya beec ma aha. dacar nabad iyo nololna beec ma aha. ha isdhihin waxa ninkan ka dhex guuxayo u qaylinayo waa in aad uu lacag u baahan yahay. uma baahnin lacag. ilaahay baan ka magan galay inaad isiisaan oo aan qaato wax dhururiyaal ah oo hooyada iyo gabadha Soomaaliyeed anigu intaan hadlo aan kaga nixiyo. ha igu wareerina. midna waa idiin sheegayaa wixii aad xalay ku hanjabteen ee aad lahaydeen YouTube-kaaga waa qaadaynaa, waa bixinaynaa, dadka saaran oo dhan aan dejinaynaa ayaan idiin sheegayaa. xalay 800 oo ah maantana waa 1000. runtaa idiin sheegaya. intii degi kartay waa degtay, intii fuulaysayna waa fuushay. mar labaad aan hadda waxaan codsanaa oo aan idin tusinayaa I am not going to go down. horaad ii qunteen oo xoolahayga u qaadateen laakiin markaan ma dhacayso. I am very secure. waxaan codsanayaa marka dhammaan wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed ee right now daawanaya xildhibaanka shacabka Soomaaliyeed. waxaan ka codsanayaa dhammaan wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed ee hadda daawanaya linkiga hortiina maraya cadaawa ku dhagan raaca nafta ka qabta. subscribe-ka ku booba, meel dheer gaarsiiya, followda iyo like-ta page-ka soo saara. la dagaalanka qabyaaladda soo garab istaaga. xildhibaanka shacabka Soomaaliyeed, xildhibaanka nabad iyo nolol, aabbaha la dagaalanka qabyaaladda. haddaad diyaar u tahay walaal waan ku soo dhaweynayaa. waad soo wici kartaa, waad ila soo xiriiri kartaa, waad igala soo qayb qaadan kartaa in aan qalabayno idaacad aan u baahanahay in aan furo oo aan bulshada Soomaaliyeed ka wacdigeliyo qabyaaladda. kow ay ka hadlaan wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed ee dunida ku nool meel walba dalka dibadiisa ka joogaan ay ka hadlaan ayaan rabaa inaan furo. geesinimo iyo wadaninimo waa loo dhashaa. waxaa fiirsanaysa 317 people. idaacadda
aan rabo in aan furo waxay ku qiimaysan tahay 5000 US dollars hal ran kama hayo runta idin sheegaya hal ran kama hayo laakiin I'm rich taajir baan ahay waxaan taajir ku ahay dadaan taajir ka ahay dad yaa isxilqaam diyaar u ah inuu dalkiisa iyo dadkiisa kusoo garab istaago la dagaalanka qabyaaladda waad soo wici kartaa telefoon lambarkaygaad iga soo wici kartaa wax allaale iyo wixii aad ku bixin karto inaad ku bixiso ayaan kaa codsanaya ta kale waxaan gelaynaa aniga idinka competition anigu waxaan ballan qaaday nolosha inta dhiman idaacaddaasi inay shaqayso oo aan ku shaqeeyo isxilqaan oo aan ku shaqeeyo maalintii iyo habeenkii 3 jeer ama 4 jeer inaan ka soo galo waqtigayga aan ku lumiyo boqolka qof ee ugu horeysa ee ka soo qayb qaadata waxaan gelinayaa insha allahu tacaala boqolka qofood ee ugu horeysa oo diiwaanka nolosha aadanaha kasoo qayb qaatay la dagaalanka qabyaaladda waxaan codsanayaa marka 100 wiil iyo 100 wiil iyo gabdho Soomaaliyeed oo isku jir ah inay ugu soo garab istaagaan in aan sameeyo studiogaas iyo idaacaddaas qiimaha ku kacaya waa 5000 US dollars 500 waxaan jeedaa 100 wiil iyo gabdhood min $100 hadday bixiyaan 10000 waa soo diyaar garooba dhulka ka kaca ummadda Soomaaliyeed ay istaaga taariikhda aan baaldahaba ka galno weliba anigu qof oldiya xabad kama rabo oo qaran dumisa oo qabyaaladista waxba uga marabno waxba yunu ku darsanan wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed inta Soomaalinimada ku jirto studiogaas inaan dhisano war diyaar ma u nahay ma igu garab istaagaysaa inaan Soomaalinimada taageero anigu taariikhdeeda waa ku sheegay hal ran ma rabo idaacaddaas aan rabaa inaan ku sameeyo 4 sano iyo bar kaasaan kusoo shaqeynay meesha aan soo gaaray kala ay soo gaarsiiyey maanta ma igu soo garab istaagi kartaa waa guuleysanaynaa ani waa guuleystay already waa guuleystay masha Allah laakiin adiga taariikhda ma ka taganaysaa history inaad dalkaaga iyo dadkaaga difaacday inaad dalkaaga iyo dadkaaga qabyaaladda kala dirirtay diyaar ma u tahay soo diyaar garooba telefoon lambarka waxaan idinkugu soo qori doonaa waxaan idinkugu qorayaa wuxuu saaran yahay horta marka u horeysaba wuxuu saaran yahay page-kan aad hadda iga fiirsanaysaan ayuu saaran yahay qof walba page-kayga follow ha soo dhaho lambarka waad arkaysaa WhatsApp waaye waad iga soo wici kartaa ururka la dagaalanka qabyaaladda qabyaaladiid Facebookga YouTubeka waxaan ku leeyahay WhatsAppka waxaan ku leenahay group la yiraahdo qabyaaladiid haddaad u baahan tahay waad soo codsan kartaa waa lagu darayaa inaad ka qayb qaadato difaaca dalka iyo dadka Soomaaliyeed war ma awoodaa 4 sano iyo bar waxaan ku dagaalamayay telefoonkaas maanta ma soo garab istaagi kartaa si aan meel dheer u tagno si aan qabyaaladda ula dagaalano ma soo garab istaagi kartaa kolkii ugu horeeyay waa bilowday masha Allah wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed aad baan idin soo dhaweynayaa meel walba dunida ka joogtaan aad baan idin soo dhaweynayaa meel walba dunida ka joogtaan inaad igala qayb qaadataan dhisidda idaacadda la dagaalanka qabyaaladda diyaar ma u tahay haddaad diyaar u tahay soo qoro haddaad rabto haddaan lambarka kuu sheegayaa haddaad u baahan tihiin insha allahu tacaala laakiin wiil iyo gabar walbo Soomaaliyeed wuxuu lambarkayga kala bixi karaa oo iga soo wici karaa WhatsAppka lambarka saaran page-kan hadda iga fiirsanaysaan insha allahu tacaala
habeen dambe ayaan waxaan sameynayaa markaan live ka soo galayo insha allahu tacaala waxaan idii soo gudbin doonaa marka lambarka teleefonkayga iyo meesha aad ku soo hagaajinayso waxaad ugu tala gashay in aad kula dagaalanto qabyaaladda waxa aad qabyaaladda kula dagaalanto ma aha wax kaa lumay waxaad og tahay haddaad qof Soomaali oo muslim tahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhiigga bini'aadamkoo la daadiyo iyo qabyaaladaba uu la dagaalamay waa suuriye in aynu maanta ku dhaqanno qabyaalad waa waxa ilaahay inoo baanish karaynayo waxaan hubaa waxa aad maanta ku bixiso barnaamijkaas aan wadno oo aad igu soo garab istaagto adduun iyo aakhiraba inaysan kaa lumin adduun iyo aakhiro kaamel lumin waa waajib diineed oo adiga ku saaran aniga isaaran inaynu la dagaalanno qabyaaladda waxa soo qoraya beenaala tahay runtii waa beenaala nahay ku socda dhib ma leh waxa ka badan milaayiinta gabdhood iyo wiil ee Soomaaliyeed ee halkan ku jira waana ku tusinayaa aniga inaan hore loo socodsiinayo insha allahu tacaala dhammaan wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed waxaan idinka codsanayaa inaynu la dagaalanno qabyaaladda si dalkeena iyo dadkeenu ay u badbaadaan volunteer inaan ku shaqeyno magaca ama sharafta ama karaamada lacag laguma helo ana hadda ku sheegay lacag laguma helo waxaa lagu helaa adkaysi waxaa lagu helaa inaad dhabar adag tahay waxaa lagu helaa inaad dhimasho aad soo diyaar garowdo teeb inaad soo diyaar garowdo ayaa lagu helaa waan idin la hadlay caawa habeen dambe insha allahu tacaala waan idin la hadli doonaa dhammaan wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed waxaan isku dayayaa inaan soo qabto bal 2 iyo 3 dadka ina soo wacaya assalaamu calaykum waa fiican xaaladda ka waran ya ها ما شاء الله ما شاء الله واركي ما شاء الله marka live aan ku jira walaalkay wax yar ii kaadi live ma soo qabad ku soo waxaad xog haysan noo soo daa ya ku soo waxaad xog noo hayso soo daa hadda live baad ku jirtaa hadal walaalkay cidna kaama xigto adaa iskale mayde sida u socdaan fahansiid waxay wax u socdaan ninka la yiraahdo Basadiir iyo waxa uu ka sameeyay magaalada Muqdisho khamriga iyo xashiishada diinteenu aysan ogolayn ee uu ku dhaxabayo fasahaadinta dhalinyarada Soomaaliyeed lambarta 2 ka qayb qaadashada dhisida barnaamijka la dagaalanka qabyaaladda labadaas buu ka koobanta Soomaaliya صح ها اوكي ما سنت كده waan dhawahay horta mid qodobka koowaad oo ka hadlayo oo dhanka qabyaalaysiga ka bilaabaya waa waxa 30 sano dalkan lagu ku burbursanaa waa qabyaalad iyo ana reer hebel ah iyo ana laandeera صح marka qabyaalaysigu anigu ma jecli aad iyo aad baa u necbahay anka qabiilkayga inkastoo ilaahay yiri macnaha la tacaarufo isku kala garta saa isku kala dhowdihiin baa u isticmaalaa moogiga qaabka Soomaalida hadda ay ugu dhaqmayso صح صح كوسع أنا وأنا دي ساقري ويلشي قبلها سوماليات أد بعد يسوي وحيرو كذي واحد بدن بعد يسوي دي ستين لمبركة إن شاء الله تعالى لمبركة يجوا كاس هذا عن إدين ساري شاشة إدين سارن قف والبقى أوباهن إنه إلى صو حريرة أما برنامج كأوكا قيب قاطته وادي سوي كرتا لمبركاس إن شاء الله تعالى وكان لمبرك ماشي سارن قف على قف أوباهن وادي سوي كرتا إن شاء الله تعالى كوسع adigoo boobsiinaya barada dadku waa badan yihiin aad iyo aad u badan yihiin adigoo boobsiinaya soo gaabinaya insha Allah ta'ala ku soo waxaan leeyahay qabiilka laga tigtoonaado qabiilnimo
waxba ma tarto qabyaaladii waa tii dalka naga burburisay ilmaha صح waa midda aan ka bixi la'nahay waa midda qabiil صح ha u karto صح waxaa keenay oo tigidka aan ka baxshay ninkii riwaayadihiisa oo jirayay turjumayay farxaan dirac صح waana useless waay صح asagaa ka dambeeyey asagaa ankee basadir anigu waa dhegaystay waa la socday ankee tigidkii macnaha asaa ka baxshay صح farxaan dirac baa ka baxshay صح tanzaniyana soomaalida sida looga necab yahay haddaad ogaan lahayd I know brother I passed وهل عذاب umada Soomaaliyeed meesha u taalo waa maanta nin Tanzania horta my friend laygama sheekeynayo midaas taas ma laygaga sheekeynayo Tanzania iyo Soomaalida wiilasha iyo gabdhaha Soomaalida dhalinyarada sida lagu yeelo laygama sheekeynayo taas experience baan u ahay ma fahanti ku soco anigu waan ogahay waan tegay ma garatay صح caasimada Dar es Salaam صح tan igu dhacday Ilaahay baa صح waxaad moodaa inay macnaha ka faanayaanba adiguna ayagaa ka faanayaan faanaya maana agtooda ay baad ka tahay ay kor labaad ka tahay agtooda waan naqaanaa waan ognahay waqtiguna wuu kaasi dhamaanaya walaalkay ku soco keenay waxaan dirac horta dembiga basadir uu suubiyey oo dhan asaga wax dembi ah kuma laha waxaa صح كوسع walaalkay baa dambiilaha ugu weyn ah oo in aan si qabanna loo baahan yahay صح asagaa dusha ahayd basadir Soomaaliya baa